komishinka doorashooyinka qaranka Somaliland ayaa iclaamiyay xilliga sida rasmiga ah ay u bilaabanayso diiwaangelinta codbixiyaasha Somaliland. Maxamed Cumar Daariq ayaa inooga soo diray Hargeysa warkani. komishinka doorashooyinka qaranka Somaliland ayaa si rasmi ah u shaaciyay jadwalka diiwaangelinta doorashooyinka Somaliland iyo sida ay u kala horeynayaan gobolada iyo degmooyinka dalku. Gudoomiyaha guddida doorashooyinka Somaliland Cabdirashiid Riyaraac ayaa warfidiyeenka u akhriyay kala horeynta jadwalka diiwaangelinta codbixiyayaasha Somaliland. bishan 2020 wareegto xeer madaxweyne ahayd ugu soo saaray taariikhda diiwaangelinta codbixiyayaashu dalka ka bilaabmayso iyadoo uu mudeeyay 29 bishan 11aad 2020 haddaba guddida doorashooyinka qaranka isaga oo tixraacaya wareegtada madaxweynaha isla markaana gudanaya waajibaadkiisa iyo awoodihiisa dastuuriga ah waxa uu maanta oo ku taariikhaysan 7 bisha 11aad sanadka 2020 si rasmi ah ugu dhawaaqaya jadwalka guud ee diiwaangelinta codbixiyaasha kaasoo ku faahfaahsan shaxdan hoos ku xusan shaxdaasoo u qaybsami doonta 4 qaybood diiwaangelintu dalka uga dhici doonto. wejiga koowaad wuxuu ka dhici doonaa haddii alla ka dhigo gobolka Awdal oo dhammaystiran, degmada Gabiley, degmada Balligubadle iyo degmada Salaxley oo ay ka bilaabmi doonto 29 bisha 11aad kuna dhammaan doonto 2 bisha 12aad ee sanadkan. wejiga labaad degmada Hargeysa iyo gobolka Saaxil oo dhammaystiran waxay ka bilaabmi doontaa 13 December ilaa 16 December sanadkan aynu ku jiro haddii alla ka dhigo. wejiga saddexaad waxaa noqon doona gobolka Togdheer oo dhammaystiran, degmada Caynabo, degmada Garadag iyo degmada Ceelaf Weyn waxaanay ka bilaabmaysaa 27 bisha 12aad waxaanay dhammaanaysaa haddii ilaahay idmo 30 bisha 12aad ee sanadkan aynu ku jiro. wejiga afraad wuxuu ka bilaabmi doonaa degmada Ceergaabo, degmada Baran, degmada Dhahar, degmada Laasqoray, degmada Laascaanood, degmada Xudun iyo degmada Taleex waxaanay bilaabmi doontaa 10 bisha 1aad waxaanay dhammaanaysaa 13 bisha 1aad ee sanadka dambe 2021 haddii ilaahay ka dhigo. muddada u dhaxaysa 29 bisha 11aad ee sanadkan ilaa 13 bisha 1aad ee sanadka dambe waxaa la diiwaan gelinayaa oo keliya codbixiyaasha aan hore isu diiwaan gelin. ujeedadu waxa weeye in dadkii aan hore u qaadan kaadh ay waqtigaa isdiiwaan geliyaan iyo kuwa hadda gaadhay da'da codbixineed ee ay damaanad qaadeen xeerarka iyo dastuurka dalku oo ah 15 jir. macnaheedu yahay qofkii maanta gaadhay 15 jir ama gaadha waqtiga doorashadu ku beegantahay bisha 5aad haddii alla ka dhigo 15 jir gaadhaya ayaa isdiiwaan gelinaya iyo dadkii cusbaa oo keliya. diiwaangelintu waxa ay ka dhici doontaa dhammaan gobolada diiwaangelineed ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland waxa aanay socon doontaa muddo 4 maalmood ah degmo doorasho kasta. macnaheedu waxa weeye degmo doorasho kasta waxay ka socon doontaa goob kasta oo diiwaangelineed 4 maalmood. marka dadka waxaan ugu baaqaynaa inay ka faa'iideystaan 4 casho. Maxamed Cumar Daariq, RTN, Hargeysa.